السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتي دقاليقة ميل أبو الدنيا كجوكتان وانينكي كينغ سولفر أها واتكدا ونسان كينغ سولفر ميديا aad baan idin jecelahay halkan aad dhamaantii ku taaleen waxaan idin ka codsanayaa inaad muuqaalkayga sii share gareysaan dunida daafaheeda geysaan ku dartaan badweynta Hindiya laagta commentigana waxa geyn aniguna dhiirigelin bay tahay aad baad u maasan tahay maanta muuqaalkana waa istaag hadii aad maqal jirtay stand by kan istaag way maanta waxaan rabaa inaan dul istaago ninka la yiraahdo Qamar Suugaani oo gabar Soomaaliyeed inta si xun u galay bahdilay isla markaasna cod sir ah ka duubay anigu isdhihi maayo laba arrin ba iga ilaaliya aniguna waan idinka ilaalinaya qofka xogtiisa qaaska ah iyo wax runta inaad ka sheegtid hadaba waxaan rabaa inaan laba mid idin sheego koow codka isaga ahi ma saxba miswa been abuur tan koobaad tan labaad codka ma isaga duubay hadii ay sax noqoto ma isaga duubay mise gabadha ayaa duubtay hadaba isla socono waxaan idin ku bilaabi doonaa markii la jir dilayay Qamar Suugaani oo Hargeysa uu joogay codkiisa baan idin daaraya dhageysta dad badan baa su'aalaha soo weydiinaya arrinta igu dhacday oo rabaa inaan si fiican ugu faahfaahiyo codkaan si fiican waxaan maray hotelka Star ama xaafadda calaamada horteeda aan maraya ayaa dukaan baan ka soo baxay oo markaa ka adeegtay dukaankii markaan saa uga soo baxay waxay la kulantay qabtan oo ciidan yaacaya ayaa codkaan waxaan barbar dhigi doonaa codkii hadda dhow ahaa gabadha waxay sheegeen ma jiraan warqad ama dacwadi ku socota warqad ay sidaan oo ay ugu soo dacweeyeen sayidi ama baan sameeyay inay sheegeen already adu gacan baa la igu bilaabay ilaa dhowr iyo 10 askari ayaa tawaataas codkan wad ka dhigtay ma filayaa ku dhawaad 1 daqiiqo ayuu daarnaa sidoo kale waxaan hore u abaari doonaa codka aan hadda u baahanahay inaan barbar dhigno ee ah codka isaga gabadha ay wada isticmaalaan hadii run yahay iyo hadii been yahay hadda ayaan kala cadeynayna waa call record waxa lagu duubay waa call record يلا وعندها خلصي عنا حلقة شفتها بورا ما نشوفها والله والله القمر هذا والله نيجي ندبع السمحة سمية يا عشرة والله يا والله الواحد شرى هذا يا والله الأوربان لا ياي يا أوربان لا ياي يلا يلا هذيك أنا ما أنا طلبة يا أنا طلبة ولا والله القمر السوداني يا من كده ولا لو قلبنا ونسوا بعد عادي وبنسوا هاي والله هذا بدي يقولي طلبة اسم صار اسم قانون والله بالله ولا لو أنا وراقي قعدتك هيا كودي ما كنت هذا حاجة إثيوبيا الصعداء والله وانا سمسمة ولا لا codka almost waan wada daawanay waan wada dhageysanay hadaba waxaanu leenahay dhaga wax maqlaa maskax wax duubta memory ayaa inaga nagu jira ka weyn kan banaanada yaala aad aragtaan electronicska ah hadaba ilaahay la idinku dhaarshay labadaas cod miyaanan islahayn maxay ku kala duwan yihiin codkii hore iyo codka hadda aad maqasheen no difference at all wax farqi ah ee u dhaxeeya ma lahan aniga hadda hadlaya ee muuqaalka hadda adiga aan kula hortaaganahay in muuqaalkii ka horeeyay kana soo duubi doona haduu ilaahay nafta ii daayo farqi uma dhaxeeyo aniga waa aniga on Saddam waa Saddam salfar waa salfar qamarna waa qamar hadaba codkani cid soo saacisay
waxaan ku soo baahin doonaa muuqaalka xiga muuqaalkan waxaan ku duubayaa degdeg waxa igu kalafay inaan ka hadlo YouTuber waxaan arkay aan isnaqaano aan hebel dhihi karaan doonayna faleexeeyo oo daboolaya codkan inuu qamar sugaani leeyahay sidee maksar walba oo loo isticmaalo machine walba oo loo isticmaalo sidee codka meesha doonta duubta ama qofka uu ka hadlo toonka qofka uu ka hadlo waxaa la yiraahdaa medicine ahaan ama afka qalaad ee caafimaadka waxaa lagu yiraahdaa larynx ama voice box gaasi sidee loo koobayn karaa ma waxaan oo keentay shakada Finland Hindiga no ma ka akhrisanayno ya ma ka akhrisanayno waxaad garatay ma gabdhaha Soomaalida ah islaamka ah oo waxa weeyaan miskiimaha ah in lagu ciyaarana ma ogolaanayno intaan ka hadli karno waa ka hadlayna muuqaalka xiga waxaan idin la soo dul istaagi doonaa hadduu Ilaahay nafta ii daayo waqtigana uu ii saamaxo cidda call recording kani soo shaacisay. Salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.